wasiirka isgaarsiinta Somaliland agaasimaha guud ee caafimaadka agaasimaha guud ee maalgashiga barasaabka Gabiley maayarka degmada Gabiley iyo dadweynaha reer Gabiley oo kala shiray sidii loo qaadan lahaa kaarka codaynta waxaana halkaasi ka hadlay waynu isla daraasanahay qiimaha ay diiwaangelintu qaranka u leedahay muddada la haystaana way kooban tahay gobol ahaan waqtigii ay diiwaangelintii hore qabsoontayna wuxuu ahaa waqti adag oo ay dadkeenu ku jireen xaalado nololeed oo adag saadaraaddeed waxaanay u suuro gelin dad fara badan oo gobolka ka mid ah inay kaarka qaataan aad bay u dhib badan tahay qof aad jeceshahay inaad u codayso doorato oo ay kuu suuro geli weydo inaad codayso taqorees arrintaas sababaasana waa inaanu qofku kaarkii qaadan in la dadaalo oo gobolada uu ka muuqdo aniga waxa ay sharafa iyadoo marka diiwaangelinta la yiraahdo gobolkii ugu diiwaangelinta badnaa wuxuu noqday Gabiley sharaf bay tahay sharaftuna waxay noqonaysaa in diiwaangelinta codayntu gobol aynay soo baxdo oo la yiraahdo gobolka Gabiley baa ugu batay labada doorasho isa saaran ee maanta aynu nasiibka u helay in aynu markaliya wada gallo waxay ka bilaabanaysaa maanta hawsha u wada joognay ah in la isdiiwaan geliyo oo aynu suuro gelino numberka ugu badan ee suuragal inuu qaato kaarka u kala tagi mayno ilaa qofka ugu dambeeya uu kaarka inoo qaato uqaasha iyo odayaashana waxaan leenahay idinkaan looga faradhuudhuubana si aad u tafaxaydataan iyo sidaad idinku awood u gelisaan iyo sidaad horteeda imika uga muuqateen in la idinka maari waaye ayay hawshaa biyadhigeedu yahay waxaan leeyahay waxaa idinku qabataan iyo gobolka halkaa dhigtaan ayuu gobolku oolayaa bulsho waliba waxa ay leedahay dad madax dhaqameeda oo laga dambeeyo oo run ahaantii madaxda uga faradhuudhuuban oo dadka guryaha ugu tagi kara oo odhan kara isdiiwaan geliya oo qaata kaarka aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa cuqaasha iyo odayaasha iyo haweenweynaha iyo dhalinyarada sida ay isku abaabulayaan ee aan doonayno in afartaa cisho ee diiwaangelintu ay socoto inaynu xoogga saarno oo aynaan u kala hadhin sidii dadkeennu ay isku diiwaangelin lahaayeen dadkeena abaaraha ku dhacay dadku waxay tageen ilaa iyo dhagax buur bay tageen anigu waxaan aaminsanahay sidoo barasaabka halkan ka dhawaajiyay doorkan 200 oo kun oo qof inuu diiwaangelin doono insha Allah barasaabkana waa kaftankiisa la kaftooyaayo gobolada qaarkood magacyo la baxaan laakiin magacana waxaan tan ku sheegay gobolka codkan laga bilaabo maanta waxay noo bilaabmi doonaa hawshii wacyigelinta 7 cisho hore aynu ka horeeya aynu hawsheeda geli doono qaybaha bulshada dhammaan laga rabo oo ugu horeeyaan cuqaasha salaadiinta iyo madax dhaqameedyada kale iyo odayaasha oo runtii wax badan horena uga taray imikana laga sugayo halkii ay bariga hore gaarsiiyeen inay halkii ay ka sii wadaan marka waxaynu u baahannahay inaynu maaragtay inaynu iskacan qabsano aynu maaragtay wada hawlgalno wixii maanta ka bilaabmanay noo noqoto shaqo bilaabantay waa Mukhtaar Nuux Ibrahim Gobonimo TV Gabiley